baa waxaa la sheegaa walaalayaal hadda ka hor rabadi ayuu ahaa wuxuu tagay xaramka ayuu tagay waa ogtiin waqtiga xajka iyo umrada laba go'aal qaada Soomaan dharka ihraamka kadib dadka ayagu caawiya biyaha zamzamka waagaas sida hadda kala ma jiro maanta waxa laga yaabaa zamzamka yaalo Sacuudiga meeshan ka cabta lagu keenay Soomaan ceel baa jiray oo dadka ay ka dhaansan jireen kadibna la caawi jiray la siisiin jiray ceelkii buu intuu tagay buu maradiisa isqaawiyay meesha ku kaayay dadkii dad oo soo cumraystay oo qiimaha zamzamka oo xaj doontay waaye dadkii ninkii bay dileen ay tumeen aad bay u garaaceen dadkii wada yaabay ninkan u eg wanaaga khayrka wajigiisa ka muuqato dharkiisa ihraamka wato xaj u imaaday isla markaa ku kaadinayo biyaha zamzamka u jeedo inay caawayaan ninkan uu fiyo maahan kadib ayaa ninka magaalada ka talin jiray oo magaalada Makka waagaasi ay arinta loo sheegay sida baa dhacday ninkan ii keena sababtu u sameeyay waxa maxay tahay inaan soo ogaan ninka soo dhaawacay baa meesha ninka amiirka loo geeyay waxa waxaan u sameysay waxaan ku qasbaday wuxuu dhahay waxaan rabay in ay ka sheekaystaan marka guriga ay tagaan nin baa ku kaadiyay meeshaas aan u noqdo dhahay in dadka ay hadal sheegaan ay hadal haayaan darto waxaan u sameeyay aan ugu kaadiyay biyaha zamzamka lidalika cudurkan caanimada qofka markii ay gasho qalbigiisa waa cudur wax kasta uu sameeynaya inuu isqaabi ha ahaato inuu been sheega ha ahaato inuu dhawaalid dil raba ha ahaato ama wax kasto maanta aad ka maqashay warbaahinta idinka ma sheekeenayaad isla socono lidalika walaalayaal ayaad ka arkaysaa wax kale ma ahan waa cudur lagu magacaabo caanim